sidii noo waday waxaan ku tagnay uu yidhi meel uus iyo dhiig ay yaallaan. waa uus bini aadam iyo dhiig bini aadam. waa nin dilaay ah oo intaasoo qof meesha ku soo dilay. waan argagaxay yuu yidhi markii meeshii aan arkay waxa meesha yaalla waan argagaxay yuu yidhi. markaasu wuxuu yidhi adigana waan ku dilahayaa, lacagtaadana waan qaadan, baqashana waan kaa qaadan. markaasaan waxaan yidhi ilaahan kugu dhaariyaa nafta keliya ii badbaadi oo hantidayda dhan iyo baqasha waxa dhan qaado, laakiin nafta uun ii daa. markaasuu wuxuu igu yidhi albaql wamaaluka lii wamaa uriidu ilaa nafsaka. baqasha iyo maalka haba ka hadlintaa kuwaas anigaa iskale uu yidhi. mar horaan go'aansaday waxaan u socdo waa nafta. maalka anigaaba iskale iyo baqasha taa mar horaan go'aansaday waa nafta waxaan ugu socdo. fadlan haddii aad nagu cusub tahay janalkan subscribe saar, gambaraalka furo si aad u noqoto qofka ugu horreeya ee daawada muuqaalada diiniga aan baahino. waad ku mahadsan tahay daawashada muuqaaladeena. laagna saar waxay noo tahay dhiirigelin oo la wadaag asxaabtaada khayrka jecel. sheekhan la yidhaaho ibnu kathiir raximahu llahu tacaala kitaabkiisan tafsiirka ah markuu fasirayey suuratu namli fii qowlihi tacaala aman yujiibu lmudara idaa dacaah wayakshifu الsuu wayajcalukum khulafaaءa alأrض ailaahm maca allah qaliila ma tadakaruun. aayaddaa markuu fasirayey ibnu kathiir qisuu sameeyey ibnu kathiir. qiso wuxuu wariyey ibnu kathiir uu leeyahay ninaa qur-aanka aad u akhriyi jiray. nin markuu aayaddaa fasirayo wuxuu yidhi ninaa qur-aanka aad u akhrin jiray. marka ninku nin miskiinuu iska ahaa, baqalluu lahaan jiray. baqallo ayuu dadka ka kiraysan jiray. baqallaha laga kiraysan jiray. maalin maalmaha ka mida ninaa wuxuu isaga soo dhigay nin baqasha ka kiraysanay. ilaa waa nin tuuga oo dilaa ah oo dhiigyo caba. ninkanuu rabaa inuu fogeeyo oo hantidiisana qaato, meel cidlana uu ku soo dilo. markaasuu yidhi waxaan doonahayaa baqasha inaad iga kiraysato. baqasha adigayna ku taqaana, adigaa wadi karee baqasha ii wad oo aan gadaal ka raaco. waa yahay yidhi ninkan miskiinka ah waa la khiyaani, waxba ma oga. baqashii isla raaceen. magaaladii uu ka saaray. magaaladii markuu ka saaray ayuu wuxuu yidhi meesha aan u soconno dariiqana gaabane dariiqanna marsii. dariiqii uu miskiinkii maray oo baqashii uu marsiiyey. sidii noo waday waxaan ku tagnay uu yidhi meel uus iyo dhiig ay yaallaan. waa uus bini aadam iyo dhiig bini aadam. waa nin dilaay ah oo intaasoo qof meesha ku soo dilay. waan argagaxay yuu yidhi markii meeshii aan arkay waxa meesha yaalla waan argagaxay yuu yidhi. markaasu wuxuu yidhi adigana waan ku dilahayaa, lacagtaadana waan qaadan, baqashana waan kaa qaadan. markaasaan waxaan yidhi ilaahan kugu dhaariyaa nafta keliya ii badbaadi oo hantidayda dhan iyo baqasha waxa dhan qaado, laakiin nafta uun ii daa. markaasuu wuxuu igu yidhi albaql wamaaluka lii wamaa uriidu ilaa nafsaka. baqasha iyo maalka haba ka hadlintaa kuwaas anigaa iskale uu yidhi. mar horaan go'aansaday waxaan u socdo waa nafta. maalka anigaaba iskale iyo baqasha taa mar horaan go'aansaday waa nafta waxaan ugu socdo. markaasaan waxaan ku yidhi waayahay fursad isiiyo 2 ragco intaan tukado bis ka bacdi idil. fursad 2 ragco igu sii. waayuu yidhi dedeji 2 ragco dedeji. waan xirtay yuu yidhi salaaddii. ibnu kathiir marka wuxuu leeyahay raximah اllahu tacaala ninkii salaaddii markaan xirtay yuu yidhi faاrtaja calaya الqur'aan falam atadakkar minhu xarfan waaxida. qur-aankii oo dhan aa layga daboolo yidhi hal xaraf waan xasuusan waaye. waan jareeyo waa cabsan. waxaan islahay uu yidhi dhowr aayadoodood isaga xijaabto ninkan ku dhex akhri salaaddii. hal aayad xataa waan xasuusan waaye. hal xaraf cabsi ayaa timid uu yidhi meel walba. waan iska taagnaayu. isagiina wuxuu leeyuu yidhi yaa cabdallaahi icjal boobsii dedeji salaadda. hal xaraf ayaa ii soo xaadiri waayo yidhi qur-aanka ka mid cabsi. markii dambe ayaa ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu igu soo ridi uu yidhi aayaddan
أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله آيادaasan akhriyey markaan faatixadii akhriyey kabacdi ayaan aayadda akhriyey oon ku yidhi ilaahow intaasoo sanaan aayaddan akhrinaye ilaahu aayaddan igu badbaadi maayo salaaddii wuxuu yidhi markii aan dhammaysan rabo nin waran wata ayaa halkaa ka soo orday ninkii wadnaha u geliyey wadnuhu faraska u geliyey ninkii tuugaa meeshii ku dhintay markaasaan waxaan idhi yidhi war addoonka ilaahayow xaggee iga timid xaalad adag ayaad ii soo gargaartay xaggee ka timid markaasuu wuxuu yidhi waxaan ahay oon ku imid shafaacadii qur'aanka kariimka ah waxaan ahay ergadii qur'aanka kariimka ah qur'aanka kariimka ah ood ilaahay ku barisay ood saaxiib la noqon jirtay ood akhriyi jirtay ayaa ilaahay igu kaa soo diray si aan kugu ergeeyo dibna ninkii uma aanan soo arkin meeluu ka baxayna waan waayey ninkii ii gargaaray waa malag ilaahay suurad bini aadam uga soo dhigay oo addoonkan ilaahay ugu nusraynayo oo addoonkan ilaahay ugu gargaarayo idan marka qur'aanka kariimka ah cajaa'ibtaasuu leeyahay ma aha keliya inuu noloshaada aakhiro uu gurmad u yahay oo noloshaada aakhiro uu kuu shafeecayo oo janno uu sababku ugu noqonayo ma ahan keliya haddii aad saaxiib joogto ah qur'aanka aad la yeelan jirtay adduunyadaadoo dhan u saxaa sida aakhiradaadaba uu kaydku ugu noqonayo mashaakilku yacni kaa difaaci alqur'aanu waa jaalibun kamaa annahu daafic qur'aanku waa jaalibo wuxuu kuu soo jiidaa wax walba wanaaga kamaa annahu daafic sida qur'aanku uu daaficu yahay oo wax walboo xumaataa uu kaa difaacayo